ahaanba waxaa maanta si ballaaran loogu xusay gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May magaalada Burco ay ahayd meeshii lagaga dhawaaqay 1991 bishii May 18 haddaba sanad guurada 25aad ee ka soo wareegtay aasaaska Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay bulshada reer Burco kuwa helinayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayay xubno ka socday asxaabta siyaasiga uu kamid ahaa Axmed Muumin Seed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi wada bilowga xafladda xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May ayaa guud ahaan dadweynaha reer Burco ee ka soo qayb galay waxa ay ku muujiyeen shucuur ay farxad ku dhisan tahay iyo waayo cusub oo aan hore loogu arag dadweynaha shacabka reer kastaba xaalku ha ahaadee waxa ugu horeyntii gaadda ka ciyaar ballaaran ku soo bandhigay ciidamada qaranka Soomaaliland qaybaha arrimaha bulshada shaqaalaha dawladda wasaaradaha kala duwan ee dalka ugu dambeyntiina waxa dadweynaha la hayirka magaalada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Muraad Barsaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo wasiiro waxaana soo gunaanaday xafladda madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeli Allahu Akbar waa maalin weyn maanta koowaad yaabana mahadle nabad iyo maartay wanaag ugu dhameeyay dabaaldegii sanad guurashada ka soo wareegtay maalinta loo soo noqday xubnaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan dhammaan waxaan u mahadnaqayaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo ka degmada ee sida wanaagsan u soo abaabulay dabaaldegga sharafta badan leh ee aad u qiimaha badan leh oo nolol karo maanta cid ka sida taagay jirin gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco marka labaad waxaan hambalyo u dirayaa ku beegan munaasabadan maanta dabaaldegga lagu dabaaldegayo rubuc qarni kadib maalintii halka laga dhawaaqay qaranimada Soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland dibadii aynu ku naaloono aynu ku seexano ee horumarka aynu wadno nabadgelyada darteed aynu jiidaha habeenaaba nagu jiifa intii halkan maraysay ama gobolada kala maraysay iyo inta inagu xeeran ee maartay aagaga hore ee xuduudaha Soomaaliland ku sugan intaba salaan gaara iyo hambalyo gaara iyaga iyo qoysaskoodaba ayaa ciidamada u diraya intaa kadib waxay maalinka gaar farxad igu sitahay maanta inaan maanta igala qayb galo rubuqani kadib magaalada Burco oo dagaal laga taagay calanka Soomaaliland magaalada laga dhawaaqay qaranimada Soomaaliland magaaladii lagu nabaleeyay dhibaatadii ama dagaaladii sokeeye laga noqday ama laga heshiiyey in lagu dhisto ummadda qaranka Soomaaliland oo laga baxo dagaalkii sokeeye iyo qabyaaladiina qaybisay ee afkaarta loo kala qaybisay magaalada lagu xidhay lagu kunti xidhay in maanta kastaba xaalku ha ahaadee waxaa ku soo dhawaaday loogu talagalay xuska maalinta qaranimada Soomaaliland iyo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee xusay sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay tan iyo maalintii 18 May sanadii 1991 lagu aasaasay Soomaaliland gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Ibrahim Muumin madaxa bannaan Hargeysa gudaha magaalada Burco ee xarunta